qabatay shirkadda Somtel iyo carwadan oo maanta yana la qabanayo inay xilligii maaragtay fiberkii diyaar noqday oo maanta on air ka yahay Puntland oo dhan in carwadu soo beegantay taas keentay inaan hortiina maanta ka cadeyno in fiber optic Somtel uu diyaar yahay presentation-kayga haddaan u guda galo shirkadda Somtel waa shirkad isgaarsiineed oo ka shaqeysa dhammaan geeyiga Soomaaliya oo dhan kuna joogta hal magac iyo hal simkaar waxaan isleenahay runtii waa shirkadda ugu ballaaran oo geeyiga Soomaaliya oo dhan hal coverage iyadoo hal magaca hal maalgelin ah ay ka samaysay laga bilaabo gees ka gees Somtel waxay dhamaystirtay coverage-ka runtii markaan leenahay hal sim card iyo hal magac waa wax Somtel unique u ah sida caadiga waxaan ognahay dadka Soomaalidu waa dad aad u safra waa dad reer guuraa ah inta badan safaro gobolada Soomaaliya u kala gala Somtel kaarkeedu waa kaarka kaliya aadan marna bedelayn lacagta aad kaga shubatay ama internetka aad ku isticmaalaysay Garowe haddii aad la tagtid meel kasta oo ka mid ah Soomaaliya kaagama baahna inaad sim kaarkaas bedeshid kaagama baahna inaad booqatid xarun kale oo shirkad oo aad kaar cusub ka soo furatid oo lagaaga baahdo marka haway ID ama maaragtay in information-kaaga la xaqiijiyo kaarkaagii aad halka ku isticmaalaysay waad Soomaaliya dhammaanteed ku isticmaali kartaa waxaan ognahay dadku markay safraan gaar ahaan dadka diyaaradaha ku safro kale markay airportada ka degaan way u baahan yihiin caawimaad oo inta badan dadku ay u baahan yihiin WhatsApp-koodii iyo maaragtay social media-hiiba ay isticmaalaan haddii aysan sim kaarka Somtel wadan inay ku adkaato markaas inay network helaan laakiin qofkii Somtel kaarkeeda wata markuu safar ka yahay uu tago magaalada u socday oo network helo xagtii uu kaga shubtay meesha uu ka tagay marka uu tago destination-ka uu socday isla intii uu sidii ugu shaqeynaya sidoo kale dadka gawaarida ku safarta inta ay ku jiraan gobolada Soomaaliya oo dhexdooda safar kaga jiraan uma baahnaa inay maartay wax nadooga kaar bedelaan ama nadoo ka tagaya ma jiro gaariga ka raacid Boosaaso ilaa Xamar daatadii aad kaga shubatay Boosaaso ilaa Xamar ilaa Kismaayo gaariga saaran tahay waad kaga isticmaalaysaa marka waxaan isleenahay waa runtii in hal shirkad oo hal sim kaara oo hal magaca la helo wax weyn bay u ahayd Soomaaliya waxaan carwadan yana ku soo bandhigaynaa runtii hadda hortiina ka qirnay fiber optic waxa maalgelintii ugu ballaarneed ee aan sameeynay sanadadii ugu dambeeyay inuu diyaar ku yahay laga bilaabo Boosaaso ilaa Gaalkacyo marka horena wadda kaga nimaadno laba fiber optic kii dhulkana uu gaarsiisan yahay 750 kilomitir shirkadda Somtel waxa u ah core principles inay maaragtay macaamiisheeda si wanaagsan u adeegto inay gaarto macaamiisheeda meel kasta ay joogaan inay maaragtay mar walba u adeegto macaamiisheeda sida ugu sarreysa market penetration-ka shirkadda Somtel waa ujeedaan shirkadda Somtel waxay la daahfuray 2010kii runtii garoos aad u sarreeya bay muddadaas sameynaysay maanta waxaa active subscribers ah shirkadda Somtel u ah dad gaaray macaamiil ku dhow 6 million subscribers baa maanta ku xiran sim kaarka shirkadda Somtel kaarka Somtel adeegyada uu ku wado ama aynu ka helayno haddii aanu qaadano waxaa ka mid ah inaad ku isticmaali kartid mobile services-kii oo dhan adeegyada mobilka inaad ku heli kartid adeegyada mobile money-ga oo adeega e-dahabku uu kow ka yahay adeega dahab balaaska iyo adeegyada la midka ah waxaa kaloo Somtel ku qabanaysa business solutions aan gadaal ku arki doono oo runtii qayb weyn oo wax weyn ka tartay dhanka teknolojiyadda oo solutionska maaragtay runtii soo kordhisay dadka in maaragtay loo fududeeyo adeegyada digitalka ah iyo dhammaan wixii digital services kaarka Somtel adeegyadaas oo dhan buu wadaa waad ka dhaxelaysaa
somtel fiberkeedu uu ka gudbay xuduudda Soomaaliya wuxuu gaarsiin yahay wadamada deriska ah oo fiberka ay somtel iyadu leedahay waxaanu gaarsiinay fiberka yaalla Boosaaso waxa uu ku xiran yahay oo somtel iyadu ay leedahay ilaa Kenya Mombasa oo fiber ka bilaabanaya waxa weeye haddana waxaan u sii wadnaa inaan sii gaarsiino ilaa Afrika geeseeda kale oo aan maaragtay isku xirno connectivity Africa oo dhan inaan sameeyno oo aan ka baxnay xuduudda Soomaaliya waxa weeyadana arrin kale guula waay somtel marka laga yimaado sim cardka iyo adeegyada uu wado oo telecomka ah waxa jira qayb la yiraahdo somtech oo ay leedahay shirkadu oo qabata adeegyada solutioniska qabata oo ay ka mid yihiin inay diyaariso infrastructure-ka waxa weeye network inay samayso hosting samayso digital solutions inay samayso qaybta security-ga ama cyber security-ga ka shaqeyso iyo inaan bixino adeegyada software licensing oo aan u nahay shirkadaha waaweyn ee adduunka ajin u nahay ama partner ay leeyihiin oo aan u joogno waddanka Soomaaliya oo aan dhammaan u sameyn karno macaamiisheeda adeegyada software-ka ah inaanu licensing-ga annagu u renewal gareyn karno ama aan siin karno inoo gadaal ku arki doonaa qaybtan marka maadaama shirkanu uu qaabilsan yahay soo bandhigida tiknoolajiyada waxaan xoog saari doonaa qaybta somtech iyo adeegyada aan ugu hayno macaamiisheeda waxyaalaha aan u qabanayno ama ay qabato qaybta somtech waxa uu ka mid ah inay samayso managed ICT iyo cloud services oo ah ay ka mid yihiin inaanu samayno infrastructure-ska systemska oo dhammaystiran iyo network oo aanu hadda shirkado waaweyn oo gaar ku arki doontaan aanu infrastructure dhan u dhisnay oo u dhammaystirnay waxaan sameyn karnaa virtual computing-ka iyo storage-ka inaanu shirkadaha u sameyn karno inaanu storage-kii xogahoodii u hayn karno oo aanu maaragtay u kaydin karno oo waxa u sameyn karno virtual computing iyo storage waxaan kaloo sameynaa software-rada oo ay ka faa'iideysanayaan qaybaha kala duwan ee maaragtay bulshadu oo ay ka mid yihiin inaan sameyno school ERP oo runtii haddeer aan aad u hirgelinay dhammaan iskuullada inaan u sameynay software runtii aad iyo aad u sarreeya oo ardaygii iyo macallinkii iyo waalidkii isku xiraya oo u shaqaynaya si maaragtay dhammaystiran oo waalidku uu awood u yeelanayo inuu la socon karo ilmihiisii attendance-giisii in maaragtay maaragtay notification ka soo dhacayo in la gaaro fiig inuu bixiyo discipline-kii ardayga uu la socon karo waalidku maalintu joogo maalintu maqan yahay la ogaan karo fasax haddii lagu jiro ogaan karo sidaas lamada macallinkiina uu sida mobilkiisa isagoo isticmaalaya uu ka raysanayo manualkii uu attendance ku qaadayay iyo maaragtay shaqadii manualka ahayd uu mobilkiisa uu application-kiisa isticmaalayo ardayda halka didhisigooda uga qaadayo ardaygii laftigiisa uu kala soconayo natiijadiisii iyo xisaabaadkiisii sidoo kale waxaan sameynay hospital information management system oo isagana isbitaallada aan ugu talagalnay caafimaadka HRM-kaan sameynay performance systems waxyaalahaasoo dhan waa qaybaha aan anagu qaybteeda somtech ay develop garaysay oo hadda ay ka faa'iidaystaan iskuulladii jaamacadihii isbitaalladii iyo qaybihii kala duwanaa sidoo kale waxaan sameynaa data center hosting baan sameynaa oo aan xogihii aan kaydino waxaan sameynaa cloud backup inaanu sameyno iyadana sidoo kale waxaanu sameynaa waxaanu wakiil u nahay arki doontaan shirkadaha waaweyn runtii waxaanu somtech ay wakiil u tahay oo halkan maanta yana inaan ka caddeyno ay tahay oo shirkadda keliya maanta partner la ah oo u joogta Soomaaliya inay tahay somtel shirkadaha waaweyn Microsoft Cisco HP iyo shirkadaha dhammaan halka jooga halka ku qoran dhammaantood waxaa partner u ah oo u jooga Soomaaliya shirkadda somtel oo aad ka gadan kartaa adeegyadii maaragtay dhammaan shirkadahaas adeegyadooda aad ka heli kartaa qaybaha kala duwan ee somtel adoon waxa weeye tegin xafiis kale adoon dubay adeeg u dirsan adoon maaragtay meel kala marin waa soo waxa uga gadan kartaa adeegyada uga baahnayd shirkadahaas oo dhan xafiisyada somtel
client-gayga ugu waaweyn aan adeegyadan u qabanno oo maanta ku faani karno waxa waaye qaybta Somtech u shaqeysay shirkadda DB World oo aanu dhammaan infrastructure-ka DB World uu ku shaqeeyo iyo systemska ay ku shaqeyso oo dhan aanu infrastructure-kaas ay dhistay shirkadda Somtel iyo teamkeeda maaragtay qaybta Somtech waxaa ka mid ah shirkadda Sompower, Dahabshiil, Amal Banki, Daryeel Banki, East Africa Banki, Brian Banki dhammaantood waxay noo yihiin clients aan u fulinay adeegyadii hadda kor ku soo sheegayay ee kala duwanaa oo ah managed ICT service aan u fulinay waxaa jirta shirkad Bluecom oo ka mid ah Dahabshiil Group oo qaabilsan qaybta fiber optiga iyo internetka iyaduna waxay insha Allah suuqa hadda ka bixin doontaa adeegyo fiber optic ah oo xafiisyadii iyo guryihii iyo ganacsigii internetkii ugu jabnaa uguna quality sareeya ay gelin doonto fiber optiga waxa weeye kala duwan qaybihiisa kala duwan sidoo kale adeegyada freelance-ka ay idin samayn doonto sidoo kale waxay idin samayn doontaa shirkaddan soo kordhisay Bluecom oo ka mid ah Dahabshiil Group oo qaybta fiberka u qaabilsan adeeg ku cusub Puntland oo la yiraahdo Wi-Fi hotspot locations oo ah in meelaha public ah oo dhan lagu diyaarin doono internet Wi-Fi ah oo qofku markuu meesha meherada tago sida meelaha airportska maqaaxiyaha waaweyn hoteelada jaamacadaha kaalmaha shidaalka meelaha inta badan qofku is leeyahay markaba waxaad u baahanaysaa inaad internet heshid waxay ku diyaarisay shirkaddu hotspot bay ku diyaarisay waad markaba ku xirmi kartid waxaa jiro kale shirkadda Somtel waxaa walaalo ah oo ay ka wada tirsan yihiin shirkadaha ka mid ah qaybta financial-iska maaragtay Dahabshiil Group ay wada shaqeeyaan oo iyaguna adeegyo digital ah soo kordhiyay runtii wax badan ka taray bulshada waxaa ka mid ah adeegga la yiraahdo adeegyada maaliyadeed oo ay shirkaddu Dahabshiil ay samaysay way ka mid yihiin adeegga Dahab Plus oo runtii adeegga ugu suguurisan dhanka maaragtay digital payment-iska Dahab oo runtii ah adeeg secure 100% iyo adeegga Dahab Pay runtii wuxuu ka caawinayaa shirkadaha inay mushaharka ku bixin karaan oo one click ay maaragtay iyagoo sameynaya website-ka portal-ka inta galaan shaqaalihii listigiisa ku jiro one click inuu aad ku gaarsiisid shaqaalahaagii oo dhan mushaaraadkii sidoo kale kharashaadka inaad ku bixisid oo supplierskaaga oo dhan intaad list garaysid aad hal mar aad kharashaadkaaga u sii deyn kartid ayna kaaga baahnayn inaad maaragtay maanta oo dhan process u martid wax allaale wixii support documentisa waxa weeye isaga lagu xareynayaa waxa kale uu leeyahay oo kaga duwan yahay portalada kale approval buu leeyahay qofka cashier-ka ah hadduu lacag ka sii daayo ma uu baxayso lacagtaasi ilaa qofka authorized-ka ahi uu approve gareeyo marka waxaan isleeyahay waa kan ugu habboon dahabaygu in lagu bixiyo kharashaadka iyo mushaharada adeegga kale runtii aad bulshada u anfacay oo adduunka oo dhan markastoo adeegtid aad isticmaali kartid waxa waaye adeegga Dahab Plus oo aad maaragtay mobilkaaga application-ka kula soo degaysid mobilkaaga OS iyo maaragtay kulli aad kala soo degaysid Play Store-kaba aadna ku kaydsan kartid dhammaan isku xiran kartid bangigaagii Dahabkaagii iyo kulli aad halkaa isku wada keeni kartid aadna isticmaali kartid meel kastoo adduunida aad ka tagtid waxaa jira Dahab Card isagoo virtual isagoo real labadaba physical labadaba waad heli kartaa virtual-ka waxaad ka dhex iibsan kartaa ama ka dhex gadan kartaa adeegga Dahab Plus runtii waxay kaga duwan yahay kaararka kale inaad hal kaar kaliya aadan gadan karin oo aad gadan kartid in ka badan hal kaar oo ilaa 5 kaar aad kala duwan qaadan kartid wada Dahab Plus-kaaga ku jira inaad ilaa 5 kaar oo Dahab kaar ah aad gadan kartid shirkaddu kuma eka kaliya qaybaha financial-ka iyo qaybaha telecom-ka waa shirkadda ugu ballaaran ay ka qayb qaadata inay bulshada wax ku celiso oo runtii haddii ay waxyaalaha u baahan caawimaadaha degdega ah haddii dab uu dhaco haddii abaara dhacaan haddii dufaano dhacaan haddii maaragtay musiibo rabaani ay timaado cidda ugu horeysa ee ka jawaabta inay tahay shirkadda Dahabshiil Group iyo dhammaan entitieskeeda kala duwan oo ay Somtel ka mid tahay
muddada uu socday fiber optigu bulshada wax badan buu ku celiyay fiber optic maanta halkaan idinku soo bandhignay inuu diyaar yahay markii kaligiis laga hadlo bulshada inuu lagu celiyay uma uu kaliya ku ekeen inuu xariga dhigo laakiin waxay uga faa'iideysanayeen magaalooyinku inuu u qodo dhammaan magaalooyin ay loo qodo maalin xurfado loo qodo wadooyin la baneeyo oo looga faa'iideysanayay qalabkii iyo cagafyadii iyo maaragtay kala duwanaa dhammaan waxay ahaayeen wax bulshada lagu celiyay oo ay shaqadu iyadu isku qabtay hadday waddo banaynayso bulshada waxba lagama baahnayn waddada si maaragtay wax ku celinaa baa loogu sameynayay haddii maaragtay xirfad loo qodayo sidoo kale waana aragtaan dhammaan sawiradoodii sidoo kale waxaan sponsor garaynaa activity-yada dawladdu ay qabanayso oo aan ku darsanno qaybtayada ayna ka mid tahay carwadan maanta aan joogno oo aan ahayn maalgeliyaashii carwada mid ka mid aanu ahayn oo runtii aan ugu talagalnayna inaanu helno bulsho fahansan adeegyada digitalka ah ama technology-ga ah si aan u helno macaamiil annaga nala fahanta investment-ga intaa leeg oo ah isaguna technology ah haddii aan la helin macaamiil fahansan waxaan la maalgelinayo oo malaayiinta dollar lagu bixinayo waxay noqonaysaa waxa maaragtay miradhal aan lahayn marka si loo helo macaamiil fahansan waxaan qayb ka noqonay wax kastoo lagu soo bandhigayo maaragtay bulshada wax lagu fahansiinayo inaan sponsor ka noqono in ka badan sanadkii 2025 oo dhamaaday shirkadda Somtel waxay ku bixisay xalfadaha iyo maaragtay waxyaalaha bulshada wax u taraya in ka badan 9,000 oo dollar waxa ka mid ahaa waxyaalihii eventskii aanu sponsor garaynay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa ku faraxsannahay inaanu carwadan qayb ka ahayn waa idin mahad celinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.